السلام عليكم دمان وايدin salaamay ardaydeena nagu xirneed iyo tan hadda nagu cusubba maanta mawduuceena aan qaadanayna waa daily English vocabularies erayada ingiriiska ee maalinlaha ah ama mar walba la isticmaalo oo nolol maalmeedkaadana ka caawinayo mar walbana u qaada Englishka inuu fudud yahay boqolkiiba boqolba hana ka cabsanin barashadiisa qaybta erayada ayaan hore u galeynaa mawduuceena eraygeena koowaad waa erayada cuntada ama food vocabularies apple tufaax this is an apple kani waa tufaax apples waa marka ay badan yihiin tufaaxyo these are apples kuwani waa tufaaxyo these are apples kuwani waa tufaaxyo apples markay badan yihiin markuu hal yahana apple ayaa leedahay Englishkeena waa kan Britishka ah mar walba xasuusnow tusaalaheena labaad bread roti I eat bread for breakfast waxaan cunaa rooti quraacda I eat bread for breakfast tusaalaheena saddexaad water biyo Can I have a glass of water? Can I have a glass of water? Glass biyo ah ma heli karaa? Glass biyo ah ma heli karaa? Tusaalaheena afaraad ama u dambeeyo qaybta cuntada waa tea shaah Please bring me a cup of tea. Please bring me a cup of tea. Fadlan ii keen koob shaah ah. Clothes erayada oo dharka ayaan galeynaa tusaalaheena koowaad waa shati He's wearing a shirt wuxuu xiran yahay shati He is wearing a shirt wuxuu xiran yahay shati tusaalaha labaad trouser surwaal I want new trousers waxaan u baahanahay surwaalo cusub tusaalaha saddexaad scarf waa qamaarka gabdhaha saartaan ayaa la lahaa scarf She bought a stylish scarf waxay soo gadatay scarf casri ah ama classic ama habaysan shoes tusaalaheena afaraad ama kan ugu dambeeyo He bought brown shoes waa kabo He bought brown shoes wuxuu soo iibsaday kabo qaxwi ama bunni ah ayuu soo iibsaday qaybteena saddexaad oo erayada aan galeyna waa home vocabulary erayada guriga tusaalaheena koowaad waa table miis This is a table kani waa miis chair kursi I am sitting on a chair waxaan ku fadhiyaa kursi bed sariir I sleep on a bed waxaan ku seexdaa sariir I sleep on a bed tusaalaheena afaraad couch fadhi They have big couches waxay leeyihiin fadhiyo waaweyn couch ama sofa waa dhihi kartaa qaybta ku xigta waa erayada iskoolka school vocabulary tusaalaha koowaad book I need a book waxaan u baahanahay book pen qalin That's my pen kaasi waa qalinkayga That is my pen bag waa boorsada ilmaha iskuulka u qaataan ama boorsada iskuulka I carry my bag to school waxaan boorsadayda u qaataa iskoolka I carry my bag to school waxaan boorsadayda u qaataa iskuulka tusaalaha afaraad adiga ayaa lagaaga baahan yahay
jumlad ahaan usoo isticmaal. Comment-ka nagula wadaag. Ruler waa mastarad. Marka that's my adiga tusaalahaada nala wadaag. Qaybta xigta waa erayada jikada, kitchen vocabulary. Knife, mindi. I use a knife to cut the apples. Waxaan isticmaalaa mindi si aan u gooyo tufaaxyada. Daawade adiga 3 erayo iyo tusaalaha qaybta faalada ama comments section nagula wadaag adigoo mahadsan. Mar walbana waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad buug iyo qalin haysatid. 10 erayo ha noqoto maalinta wixii aad baratid meel ku qabatid aad ku celcelisid maalin maanta ahayn ama maanta adiga u baahanaa la arkaa Englishka meel walbo la tago muhiim. luqadna lagama weynaado. Cashirkeenana halkaas ayuu inooga egyahay. Fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay subscribe saaro sidaad uga heshid casharo taxane ah iyo casharo mar walba aan soo dhigno. iyo casharadeen horeba sida u daba raacdid mowduucyadan hadda soo marnay ama erayadan casharo kale oo hore u soo qaadanay ayaa isku soo barnay. So YouTube-keena profile-ka waa gali kartaa. Casharada dib ayaad ugu noqon kartaa. waana ku mahadsan tahay sida aad noogu daawatay. Fadlan like iyo share noo dheh. Comments-kana nagula wadaag cashirka aad jeclaan lahayd inaad ku soo celiyo. waana mahadsantiin.